dhegaystayaal barnaamijkii toddobaadkii hore sidaad ku maqasheen muddo dheer waxay soomaalidu hodan u tiqiin qofka ama qoyska hantiya xoolaha ugu badan gaar ahaan geela sida la og yahayna magaalooyin dhowra oo xeebaha ku yaal markii laga reebo waxaa aad u yaraa ganacsiga gudaha iyo sidoo kale badeecadaha loo dhoofiyo badaha shishadooda sidaa darteedna si uu u noolaado qof waliba lahaanshaha iyo dhaqaalaysiga xoolaha nool ayuu ku mintidi jiray waa kasta oo beriya wuxuu u tafaxaynaa siduu ku haysan lahaa siduu ku kordhin lahaa siduu dadka iyo dugaaggaba uga badbaadsan lahaa ninkii aan sidaas yeelini wuu darxumoon jiray sabool dadka barya ayuu ahaan jiray markaas buu habeenba reer ku hoyan jiray ilaa la isu sheego ilaa loo aqoonsado dawdar aan la tixgelin ama wuxuu ahaan jiray dabad ugaarsiga ciddoodka ku tiirsan oo dabinnada uu dhigto ay maalin wax ugu dhacaan maalin kalena ku hungooba ama waa markuu ugu fiican yahay ee weli uu xoogga leeyahay wuxuu ahaan jiray qawsaar calooshiisa u shaqaysta ciidan xoolaha dadka kala ilaaliya amaba ceesha ka shuba saddexdaasuba xoolola'aanta awgeed bulshada dhexdeeda maamuus kuma ay lahayn xirrib iyo xeel kasta ha sheegteene uma ay badnayn geedka raggu ku shiro inay yimaadaan hadday yimaadaanna waxaa yarayd tale ay ka soo jeediyaan in laga koobiyo dhinaca kale waxay fadhiga uga kici jireen fiidadkii kolba qofka uu xeradiisa geel fiicani ugu soo hoydo gasiinka ugu wacan ee la jidiintana caanihiisa ayay u yaqiineen nin soomaaliyeed ayaa mid kale wuxuu jeer weydiiyey hebelow wax calooshaada gala maxaa kuugu wanaagsan markaas buu ku jawaabay cad caana dabaashay ma ku daraysaa oo uu ula jeeday hilib inta la cuno caana laga dambaysiiyey ma wax lala simaa jira beer falashada uma ay aqoon meherad fiican oo lagu noolaan karo ugaarsiga ayay ula meel joogtay taasina qaybaha suugaanta oo idil ayay aad uga muuqataa allah u naxariistay cali dhuux ayaa niman uu beri guubaabinayay wuxuu u tiriyey gabay waagii dambe aad u caanbaxay waxyaabihii uu nimankaas ku dhaliilayay ayaa waxaa ka mid ahaa geelashii laga dhacay markay soo dhacsan waayeen inay cayr fara madow ku dambeeyeen dabadeedna la baday inay beera fashaanoo haruurka uga soo go'a ay nolol ka dhigtaan wuxuu yidhi makaahiilku doy uma kaceen degaya hiiraane daacuunku meeshuu ku layn uma dalaabeene daal iyo haruur kuma cuneen degalkii haarweyne tudac kale oo isla gabaygaa ka mid ahna waa kii ku lahaa dacwad kalena waa reer xirsiga halaan dareensiiyey dadka waa la wada laynaye waad u daraydeene dubbihii ku dhacay bihini cali doogta weli haysa waa waxay la dabandeebayaan daqarradiisiiye waxay dalaga beeraha la qodan waa dagaagnimo cabdi maxamed owmagan oo cabdigalayax loo yiqiinay wuxuu allaha u naxariistay ka mid ahaa maanseyahanadii ku fogaaday ammaanta geela iyo tilmaanta waxtarkiisa tixuu caanihiisa ku ammaanay ayaa waxaa ku jiray caanaha qiyaas laga lisiyo qoran karuurkeeda ayuunbaa quraac iyo cashaba lagu qaboobaaye qashin weeye soortii kalood quudka dhigataaye qandha iyo kulayl laguma oga qabata meel baasee qabsinkiiyo calooshoo dhan bay qaras u diidaane inkastoo qasnada looga furo qadanna loo yeelo magaalada ma qaayibo ninkay qaawo korisaaye qaawo waa magac ka mida magacyada geela ay ku koolkoolin jireen waxaa haddaba jiray nin isna raggaas ku fakar ahaa oo ay la ahayd oon xoolaad waxaan ahayn oo lagu noolaan karaa inaanay jirin ninkaas oo magaciisa aanan helin ayaa markii ugu horraysay sodcaal wuxuu ku tegey
magaalooyinka soomaalida ee xeebaha ku yaal middood. markaas buu u fiirsaday sida looga nool yahay iyo waxa lagu haysto. markaas buu la yaabay dadkan aan xoolo bartood lagu ogayn oo haddana dhaqan, dadkan aan neefna u foofin neefna u soo hoyan oo haddana ladan, maalin walbana hilib iyo caano ka durduuranaya. wuxuu kaloo la yaabay dhaqamo aan markaas miyiga lagu aqoono dadka magaaladaas uu ku arkay, sida sigaar cabbista, cunista qaadka, habka ay u sheekaysanayaan iyo hadallada taagtaagan ee midba uu kan kale ku leeyahay. muddo hadduu halkaa ku maqnaa ayuu maalintii dambe miyigii ku noqday. markaas baa inta lagu soo xoomay waxaa lagu yidhi, hebelow, ka warran meeshii aad ka timid, maxaad magaalada ku soo aragtay? kolkaas buu ku jawaabay tixay tuducyadan soo socdaa ka mid ahaayeen. wuxuu yidhi, daaraha magaalada inaan daawasho u joogay oo aan dayacay xoolihii waa daliil dhabahee war baa aniga iga daahanaa ama daboolaay. duunya nimaan wax uga foofahayn, daribna waayeynin oo dalab caanaheedii iyo subag laysku daray haysta, war baa aniga iga daahanaa ama daboolaaye dalkii aan ka imi bay jiraan duul sidaasiiye. dab la cunayo, doog iyo caleen la iska daaqaayo, duq carruur sideed u hadlayoo darajo loo yeelay, dabeecadaha caynkaasa oo iga da'weynaaday aan weli dubaaqayga gelin, diiriyow aniga dalkii aan ka imi bay jiraan duul sidaasiiye. dad heshiisa doodina dhex taal ama dagaal weyne oo qaarba dacu yaacayaan orod ka daalaynin, aan waxay daydayayaan la arag ama diboodaya dalkii aan ka imi bay jiraan duul sidaasiiye. dulugla cayr ah oon maal adduun wax u dareeraynin oo dahab xariiriyo ka siman, daabac dheer lacagah, war baa aniga iga daahanaa ama daboolaaye dalkii aan ka imi bay jiraan duul sidaasiiye. maansha ku maahmaahe hal nin la tuur lihi nin la toosan. dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa inoo jooga. waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.